dhagaysanaysaa waxaad ku soo dhawaataan 2006 xilligii midowgii maxaakiimta ay ka soo ifbaxeen gudaha Soomaaliya. haddaba barnaamijkan aad ka daawanaysaan diirad.com waxaan diiradda ku saari doonaa xilligaasi oo ay maxkamaduhu si xawliga ku socdeen 2006 iyagoo xilal badan kala wareegayay maamuladii kolkaasi jiray iyo warlordskii koonfurta Soomaaliya ka shaqeynayay. haddaba barnaamijkan oo ah barnaamij gaar ah oo ay diirad idin soo xushay waxaad ka daawan doontaan oo aad ka dhaxalki doontaan mas'uuliyiin hore uga mid ahaan jiray midowgii maxaakiimta. haddaba barnaamijkan oo ka dhacay lagu qabtay Afgooye waana 30kii bishii 9aad 2006 waxaana barnaamijkaasi xil wareejin rasmi ah loogu sameeyay maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose oo uu gudoomiyaha u ahaa gudoomiye Sheekh Yuusuf Siyaad Indhacde. haddaba waxaana barnaamijka ka dhex muuqan doonaa gudoomiyihii midowga maxaakiimta iyo madaxdii kale ee halkaasi iyaguna goobjooga ahaa balse daawasho wacan. ugu horeynteena waxaa halkan ka hadli doona khadiibka degmada Afgooye Sheekh Cabdulqaadir Xamsan isla markaasna gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda Al-Bayaan. بسم الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده وكرمه تتحقق الأهداف والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ضمان انت حفظتك السوق يبقى شيء وقوه الرأيو قدوميها قراها الشورة قراها حكيمة إسلامية الصوماليات الشيخ حسن لاهر أويس قدوميها قراها فلنتا قراها محاكيمتا شريعة الإسلام في الصوماليات شيخ شريف شيخ أحمد قدومية كعيقة تنفيذك مدحها حفيسة محاكيمة إسلامية مدحها قبل كالشوالله هوسي أهنا حقيها أمنية مدوغة قولها مدوغة محاكيمة إسلامك شيخ يوسف محمد سياد إندعد ضمان قدومياشا قولك دقموينك قولك الشوالله هوسي ضمان waxgaradka aqoon-yahanka nabaddoonnada dhalinyarada iyo xaflada ka soo qaybshay dhammaan inta soo xaadirtay waxaan marka hore idin soo qadimayaa salaan aad u diiran oo kaliya laaba oo ah salaanta dadka muslimiinta rabbi gaarka uga dhigay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka dib waxaa farxad idin ah ama dhammaanteena noo wada ah inaan maanta u joogno soo dhawayntiin aan idinku soo dhawaynay goobta tan degmada Afgooye oo ah goobta isku xirka Soomaalida guud ahaanteed. taa waxaan leeyahay Afgooye ramsi gaara iyo gobolka Shabeellaha Hoose ayuu wataa waa gobolka Soomaaliyeed ee inta badan qoqobka uusan ka jirin kana jiri doonin insha Allah taala. taasi waa xaqii soo dhawaynta waxaan aad iyo aad rabaa halkaan inaan mahad gaara oo aad u weyn marka ugu horeysa aan ugu qadimo Allah subhanahu wa ta'ala waafajinta una waafajiye arrinta tan oo maxaa yeelay arrinta tan maanta aan u fadhino waxaa nin walba og yahay in ay rabeen cadawga ummadda Soomaaliyeed inay ka dhigtaan gudin ay ku dumiyaan saxwada iyo kacdoonka shacbiga ah ee Soomaaliyeed ee kor u qaaday kitaabka Ilaahay isku waafaqay inuu hirgeliyo shariicada Islaamka taasoo ah maqabbatu najaahihi wa inqaadihi meeshii laga fili lahaa inay ku badbaadaan ayaw ayaa in badan wuxuu damacsanaa
inay gobolka uga dhigto macwal ama sabulin uu ku dumiyo laakiin taasi way beenowday allah ayaana ku mahadle taasi way beenowday allah ayaa ku mahadle awalan wa qabla kulli shay kadibna waxaa ku mahadle madaxda gobolka oo in badan u dhabar adeegay inay guulaysato hawsha dalka Soomaaliyeed ku dhaqaaqday oo ah midowga maxaakiimta islaamku inay noqdaan hormuudka badbaadiyaha ummadda Soomaaliyeed waxa in badan la og yahay gobolka inuu kaalin ka qaatay inay hirgasho ay najaxdo hawsha maxaakiimta islaamiga ah cid walba hore u xamatay ama haddana xamal lahayd maanta isheedaha ku duulanta leedahay marka labaad ikhwati marka xiga ikhwati waxaan taariikhka hore iga siinayaa iqliim shabeell السفلى waa gobol muhiim ah dalka Soomaaliyeed isla markaana ah meel xasaasi ah gobol khayraadkiisa badan yahay qabiilada Soomaaliya oo dhanna intoodii badan ku midaysan yihiin sidaa darteed gobolka wuxuu ramzi u yahay midaynta ummadda Soomaaliyeed laga bilaabo maanta waxaan leeyahay gobolkan waxa weeye ramzi ama sunnad ayaa rabaa inuu u noqdo midnimada iyo ku dhaqanka shariicada islaamka oo ah baahida ugu weyn ee ay qabto maanta ummadda Soomaaliyeed walaalayaal muslimiinta dhan waa walaalo rabbi wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta oo dhan waa walaalo la yidhi waa bimacna alkalima maxaa yeelay waad wada og tihiin alislaamu laa yactarif alfawaariq aljinsiy islaamku marna ma aqoonsanayo wax la yidhaha kala duwanaansho jinsiyadeed islaamku waa kii mideeyey bilaal oo xabashi ah iyo salmaan oo farisi ah abidar oo carab ah iyo suhayb oo ruumi ah maanta miyaan annagii noqonaynaa ayadoo kitaabkii gacanta noogu jiro kuwa lagu kala qoqobi karo wax aan diinta islaamka ahayn oo macnaa aan shariicada islaamka wax u dhimayso oo dadka cadawgana u adeegaa in lagu kala qodo waxaan qaadan karna miyaa walaalayaal ma qaadan karna ikhwati dad walaalo ayaynu nahay allana wuu yidhi innama almu'minuuna ikhwa nabigana wuu leeyahy sal allahu calayhi wasalam masalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamasali aljasad alwaaxid ida ishtakaa minhu عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا سوكو وحوي مسلمين توافر كليوه حرمتي كحنو ستبع تكلوا وحنو سليسا إخوتي هذا الشعب كدولك وحين إنك إراده الشعب وحالمو يقانا حبه للسلام والشعب النبضون نبدنا إن بدن أولا لي شعب بواكي isku day 16 sano dhibaato kasto gobolku ka dhacdo inaanay 3 maalin ama 2 maalin dhaafin nacmadaas ilaaha siiyay gobolka dadka ku nool ma jirto arin dad qabiilo isku qabtaan ama siyaasiyiin gobolka jooga oo noo dhaaftay haddaan nahay dadka gobolka ku nool 2 maalin ilaa 3 maalin taa ilaahay aan ugu mahadcelin allah alxamdulillah walaalayaal gobolku waxa lagu ogyahay inuu yahay gobol xadaaradeed oo ay ka jirtay xadaarad qadiimi ah oo mantiqadatan caan ku tahay sidaa darteed walaalayaal xadaaradii gobolka uu lahaa ee Soomaaliya oo dhan u wada dhaxaysay in dib loo soo celiyo ay maanta dadka gobolka insha Allah ta'ala diyaar u yihiin ana magaciina ku hadlaayo soo diyaar uma nihin barakallahu fiikum waxaan leeyahay alla damay xalagu uu damay in badan hadda kaliya ma aha inuu noqdo saxwadan jirta iyo waliba arrimaha xasaasiga ummadda Soomaaliyeed in lagu kiciyo taa waxa way mustaqbalka ka soo bilaabato gumaystihi iyo xukuumadii ka dambeeyay ikhwatul kiram maanta waxaad ogtihiin dadka gobolka ah arrimo badan oo arintooda khuseeya in meelo badan la isugu soo hadal qaaday laakiin taa waxay ahayd mid u adeegaysa in badan gacan shisheeye ama xalowga ummadda Soomaaliyeed oo waxa la gaarsiiyay dadka gobolka suuniye inay ka qaadaan acmaasha ay wadaan culimada Soomaaliyeed oo rumuudka ka yihiin midowga maxaakiimta islaamiga ah ilaa ay qaarkood dayaasi ishii khayrka aragtaa waa mid guulaysatay aan khayrka arkaynina habboqda leena habboqdo ninkii maanta khayrka Soomaaliyeed u kacay ku farxayo gobolka Shabeellaha Hoose arrimihiisa maanta ku farax waa mid cadawgana uu ku jabi doono ilaahay idinkiisa walaalayaal waxaan leeyahay
waxaan qof kasta oo Soomaaliyeed ama meeshan jooga ama cabra wasaa'il i'laam iga dhageysan doona waxaan u sheegayaa warniyow Soomaaliga ah niyahow muslimka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yeelay qiyam iyo sawaabit aadan meel uga gudubtaana aan lahayn qofka Soomaaliga maanta waxa looga baahan yahay inuu ka digtoonaado dibindaabyada cadawga ummadda Soomaaliyeed oo ugu sii horeyso dawladda maxaysatada ah ee Addis-Ababa ka dhisan ee Tigreega hogaaminayo waa in arintaasi si fiican la isaga digtoonaada annaga ka culimo ahaan waxaan leenahay shacbiga Soomaaliyeed maanta waxay gaareen inay culimada hogaamiso anoo culimada magaceeda ku hadlayo waxaan leeyahay culimada shacbiga ay ka tirsan yihiin meel looga magoy karaan khayrkan humud ka noqdeen shacbigana waa inuu culimada garabkiisa istaagaa haddii shacbiga Soomaaliyeed maanta kacdoonkan u kacay aanay garab ku siinin culimada Soomaaliyeed waxa weeye ogaada darbigii ugu dambeeyay ayaa maanta la cuskan yahay ilaahay darbiga nagama dumiyo shacbiga gobolka iyo ragga idaarada ah sidii ay u mira dhali lahayd kacdoonkan shacbiga ah oo ay maxaakiimta hogaaminayso oo isla markaana Soomaalidu isku wada raacsan tahay in shariicada islaamka uu noqdo dastuurkeeda Allahu akbar Soomaalidu mardame dastuur meel kale laga soo diyaariyay oo qof aan taariikhdeeda iyo asaaradeeda shughul ku lahayn uu soo diyaariyay diinkeeda mardambe inaanay ogolaanaynin Soomaali kurtigeed waxay maanta isku raacsan tahay rafcu kitaab Allah wa rafcu kitaab Allah wa mustawaahu fi awsat al-mujtama' bulshada dhexdeeda kitaabka inuu ka shaqeeyo waa inuu ka shaqeeyaa kitaabka Ilaahay taana waa uu dareynayna naf iyo maal waa hurayna maxaa yeelay shayga wanaagsan laguma gaaro ilaa iyo naf iyo maal loo huro ikhwatal kiram dadka xaflada meesha isugu yimid waxaan maanta xusuusinayaa dadka gobolka ku nool waxay lahaayeen tatallucaad iyo tumuuxaad fara badan tumuuxaadkii ay lahaayeen maanta calaamaday ka tahay way soo muuqatay wayna dhamaystirmi doontaa Ilaahay idinkiisa walaalayaal dadka gobolka waxay aad u quudareynayeen in taxwiil uu ka dhaco nidaamkii meesha ka jiray ayadoon maanta dadka Soomaaliyeed dad kala qoqobi kara aysan ahayn laakiin waa sida la yiri khaatib الناس على قدر عقولهم ayaa golaha maxaakiimta islaamkana sida ay ugu dhabar adeegayso midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay in badan golaha uu ka shaqeeyay waligiina ku shaqeyn doona anoo magac culmaan uga hadlaaya mideynta ummadda Soomaaliyeed si meesha ay uga baxdo al-uqad an-nafsiyya oo laga yaabo inuu cadow ku soo dugaalo ayaa laga yaabaa al-uqad an-nafsiyya taa ayaa gobolkan insha Allah ta'ala maanta ka hirgashay waxaan rajaynayaa inay gobolka ka hirgali doonaan wax la yiraahdo tahwiil jidri ah idinka nacdo oo maxaa yeelay gobolka Shabeellaha Hoose haddii madaxdii markaasi hogaaminaysay aanay garab istaagi lahayn hawsha maxaakiimta gobolka Banaadir maanta nin walba waa garanayaa halku arrimuhu mari lahaayeen taa waxaan leeyahay mahad Allah idinka gaarsiiyo mahad aan la soo koobi karin Allah idinka gaarsiiyo waa soo dhabar adeegteen waa soo dadaasheen ninka xanta meesha la fadhiya awal wax ma soo kordhin jirin xantana qiimo ay leedahay male waxaan soo ognahay gobolkan inuu wax badan dhaamay gobolo badan oo ku hareeraysan taana waxaa mahadeeda leh Allah subhanahu wa ta'ala alla kadibna madaxdii gobolka iyo guud ahaan shacbiga gobolka oo u dhabar adeegay waxaan alla ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala hawshatan mid dhaqan gasha oo dadka gobolka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ay u aayaan waxaan ballan qaadaynaa annagoo garab istaagan madaxdeena golaha shuurada iyo golaha fulinta ee golaha midowga maxaakiimta islaamiga Soomaaliyeed in aan garab iyo gaashaan u noqon doono sidii shayba aan gaashaan iyo garab ugu noqonay inay hirgasho hawsha maxaakiimta islaamka kitaabka Allah iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam loo adeego ummadana aanay ku kala tagin واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ضمانتين وادما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والله محاكمته dadweynaha halkaas ku yimid
والغضب مدعنا الضركة مدعنا الدنيا وعنوانتي وعن بكسلامي وسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي وعشرة وين الله محاكم سلامك أنا مرتبط ورسله المهد علمية خيرك إيا برواقضة إيا النعمة إيا حفلة النوع أي كسر سنتها إيمان تيفضل الوقتين إلهي بأنه مهد علينا ألك بعدنا وعامل مهد علينا محاكم سلامك إيا أنت كعبانك كجبتين وخيرك إيا النعمة إيا حكمك الإسلامي وقرب بشيء محاكم تقمانك إيا مهد علينا وكلامه ما هذا علينا إنه مضاعنا قبل كعب وصلنا فربنا نبقى مشاكل فربنا كلا سوق من قبل كعب ومركا عن في مدرك أنت تكلا قالوا يا رب أعتقد على طيب سير قبل كعب وانت الداخل أيام الله مدرك هاي تقولنا بس وعلى وعندي سبحان الله لكن وعلى ما يملك في شغله بكسر خطتك وحبلنا يدبرنا وغرتان وحبلنا يضرب وغرتان من حزنا هذا اللي جاي ولا جاي على بس كذا كيس ما يريال لكن حقيقة واحد تعب ما أنت ما تعلم بكليه شرف بكليه قبل كان حق بكليه وحيالها أي كبدابين لا بدابين لكن وحيالها أي بدابين أما أي كشكايين ما علمتك بعدي ولا ليال محاكمته وعن كسر لوين النار قبل كان شبه الله وحسه وصيدا أول أكتين كعلونك كغير دلي ومحاكمته كاليين وبناء استاغين ونفي مال بحيين ومحوها عداوة دينة الإسلام ككورتين وقالك استكون الدردين محوها سيدا حق الله راعلها بدل كان كسور وينينا دقمة أسبوع كسور وينينا دقوينا كسور وينينا خالبا ذكرناهي وفرحسناهي عادي عالم فرحسناهي كسور وادا وعالم يبلغ هذا إن شاء الله كتاب القرآن كود موكانتين شريعة الإسلام كود موكانتين وعيد كقرب قلينا عداوة دينة الإسلام كعداوة والله دقالمينا عدو قدبت إيا متك قداها والله دقالمينا وحان كعطننا محاكمته إلا يدبويناها كسبران دبويناها عداي كسبران دل كان عدو سوى مقلكا نولي بماشي وجوبه وكلا دقالمينا حبشي إيا واحد بابدل فواه إيا واحد لحال ماله دل كان من دفاعينا نول بهد يرقروا الله أكبر انت كبعدي وعن كعد سنة يا محاكمته قبل كان إلى محمد سياد بره أيها المكور تقالمي حكم كنا عاسية المكور تقالمي حكم كقاب غملياشا المكور تقالمي بيلا بدن أو ريسان عمارة تصوضح قلي أو أقردانوي بدن باقاري وحان ذي كعد سنة يا قبل كان مادام هو يا قبل كيديني إني oo iskiin barbartaay haddana wali diyaar ah in wax laga qabto in cadaalad loo sameeyo in maalgelin lagu sameeyo in priority la siiyo waxaan idinka codsanaynaa inaad gobolka wax ka qabataan maxaakiimta inuu hadda ma xifaalay karo si fiican suban qaadna ragga qaarkiis laakiin waxaa la sheegay hadda lacaguma jirta hadday lacag jirta xataa inay bakhiil yihiin walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad gobolka in raxmadna ku fiirisaan adeeg bulsho ma leh isbitaal ma leh muxuu ahaa xukun islaamiya kama dhisnay maanta ka hor beerihii waa baaba'een guryihii waa baaba'een adeegii bulshada waa baaba'ay dadkii masaakiinta ahay waa ku baaba'ay meesha baahi baa ku laysay webigii waa ku fatahay hadda idin aadaymayno dhowrkii biloodoo meesha madaxda ka aadeen adinkaaba mashquul ahayba laakiin maanta ka bacdi maxaa sheegi doontiin haddana loo soo gurmana
intaas ka bacdi waxaan rabaa dad badan oo iga mudana hadalka sugaya reer Afgooye iyo reer gobolka Shabeellada Hoose waxaan ka codsanaynaa inaad maxaakiimta garab gashiin inaad kitaabka quraanka ku dhaqankiisa garab gashiin inaad islaamka garab gashiin inaad isu qalbi furtiin inaad iskaashatiin inaad qaranka islaamiga qaybtiina ka qaadatiin haddaad salo muxuu ahaa dhihi jirtaan culays baana saaran beelaana saaran waxa asbaara noo taal maanta waa u jeediin xaqiyaa soo dhahay anigu dhallin badan baan jiraa ma arkin weli ilaa 7 madaxweyne la soo shaqeeyay xukuumad islaamiga ee kitaabka quraanka ku dhaqmaysa ma aanan arag maanta ka hor si gaar ah ayaan muxuu ahaa xamaasadeysanahay waxaa loo baahan yahay ilaa 60 gobonnimadu markay ay qaadato Soomaaliya nama soo marin inaan dastuurka rabbi noo soo dejiyo aan ku dhaqanno inaan diinta islaamka ku dhaqanno nama soo marin maanta ayna soo martay laakiin waa ka xunaa rag badan anigu ka mid ahay waa dhalmaysan marka waa inaad ka faa'iidaysataan waa inaad wax la qabsataan waa inaad alla ku mahadcelisaan waa inaad gobolku waa gobol barwaaqo waa inaad gobolka barwaaqada ku jirta midnimo iyo wadajir iyo qalbi fur aanu kula soo wada baxno xukunka islaamigana waa inaad wadajir maaragtay annagoo isku duuban aan gacan u siino aad iyo aad ugu mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin maanta waa faraxsanahay waa khayr waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahadda iskale marka gobolka waa kaa waa idinku soo dhaweynay waa idinku wareejinay waa muxuu ahaa ku faraxsanahay waa wada shaqaynaynaa insha allah asalaamu calaykum عبد الله بن حسين xafladda maanta meesha ka dhacday oo la isugu yimid haddaan nahay reer Afgooye anigoo ku hadlaayo afkii nabadoonnada deegaanka Afgooye oo baaxad weyn leh kamida degmada gobolka Shabeelle intaas aan ku noolayn oo aan joognay oo aan ka warqabnay in wadanka uu ka dhacay kala weyn iyo gudoomiye oo lagu halgamaayo diinta aan rabaa iyo diinta ma rabo waxaan ku soo dhaweynaynaa maxaakiimta annagoo diinta taawacsan haalli u ah maxaakiimta islaamiga gacan inaan ku siino lana shaqayno had iyo jeerna aan waafilanaynay inay noo imaanayaan haddana ku soo dhaweyno gobol iyo degmas aanu leenahay Shabeelle waa baaxad weyn yahay waa dad fara badan qabaylo badan oo ku nool intaas waxaan diyaar u nahay inaan halganka diiniga oo diinta lagu halgamaayo inaan isgarab taagno laga bilaabo maanta oo xafladan wareejintii gobolka ay tahay inaan raalli ka nahay ana furan niyo furan qalbi fiican oo saliima aan ku soo dhaweynayno maxaakiimta kuna darbeeyno wax alla wixii leeyahay ka soo jeedo oo la dagaalamayo hoo iyo hiilo aanan ka inda qarsanaynin kuna dhaqmayno diinta islaamka mustacidna aan u nahay inaan maxaakiimta soo baxday oo diinta wado inaan anagana ku garab istaagno ilaa shaqayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh jamciyadda tadaamun sheekh aadan xasan xuseen wixii intaa ka dambeeyo waxaan galaynaa haddana bacdamaa xafladaani ay tahay xaflad heer gobol ah intii horeysay gogasha oo keliya ay ahayd waxaa daadihinta noo sii wadi doona xooghayaha warfaafinta gobolka cali baashi jimcaale oo markaa yacni arrintan soo dhoweynteeda guud ay leedahay gobolka Shabeellaha Hoose marka tanna waa midii ugu dambeysay gogasha ka hadalkeedii sheekh aadan xasan xuseen mudiirka jamciyadda tadaamun falyatafadal الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان مذاهب محاكمتا أما قوله محاكمتا مذاهب قبلك dadweynaha
hay-adaha kulligooda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay. salaan kadib xaqiiqdii farhaddayda saaka ma koobi karo, kalimana kuma cabiri karo. gobolkan waxaan u soo joognay taariikhda yareedoo da'dayna ay tahay maamullo kala duwan, inkastoo waxgaradkayna ama dareenkayna siyaasadeed uu qaangaaray xukuumaddii kacaanka, intii kale waa saasaynan ula soonin. waxaan u soo joognay magaaladan ayadoo rag ardadayna lagu xirxiray anoo afgooy hamar degan aan soo baxay afgooyaan imid anigoo raba raggii inaan bal xirxirigooda waxaan ka qabto. duruus ay akrinayeen, wacdo ay akrinayeen, keligooda loo xirxiray. uu ka mid ahaa ninkaan wadaadkan hadda khadiibta ahoo khudbada qiimad leh noo jeediyay uu ka mid yahay. hamaraan ka mid aan imid, stationkaan imid, anigan liigu daray. waxaan u soo joogay masaajid oo hadda oga dhinacii kale ah intaan bilownay isagoo mitarkii saddexaad maraya naloo diiday ayaan u soo joognay. waxaan arrintaasaan u soo qaaday sidii islaamka loola dagaalamayey, dadkii sheeganaya ay ula dagaalamayeen ayaan ugu jeedaa inaan wax ka tilmaamo. kadib arrintan fawdada ayaa timid. alxamdulilah gobolkan sidii horeba loo sheegay dhibkiisa waa yaraa, weliba sanadaha damba markii dadka waagii hore dadkao dhan waa mahsanayeen, xukuumadii shuuciga unbaa dadka u muuqatay, waa la isdardarayay. laakiin markii damba oo wacyiga uu soo noqday gobolka waa degay. rag ilaahay allu khayr ah oo waa kaasa jawaanib badan oo khayr ah uu ka muuqday ayaa ilaahay gacanta u geliyey. sidii loo sheegay waaye idiraabaadkiisa way yaraayeen, ilaaha loogu mahdiyaa. intaas waa kaase taariikhdii horodhaad haddaan ugu baxo. xaqiiqdii farxaddii mar labaad ma soo koobi kara saaka reer afgooy ay faraxsan yihiin. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa farxaddan inuu noo dhammaystiro. waa kaas aan ku tahmayno ilaahay noo hiirgeliyo. ma rabo hadalka inaan ku dheeraado, waxaan rabaa dhowr qodob inaan tilmaamo. reer afgooy mid baan leeyahay, madaxda cusub oo golaha maxaakiimta mid baan leeyahay, raggii hoggaanka noo hayn jirana mid ayaan leeyahay. xaqiiqdii watacaala nicmadan uu idin siiyey shukrigeeda inaad gudataan ayaa laydinka rabaa. wax badan oo maanta kitaabka ilaahay reer afgooyaan in reer gobolka shabeellada hoose dhammaantooda waxaan leeyahay nicmadan ilaahay idin siiyey oo ah kitaabka ilaahay in laydinku xukumo oo ay idin yidhaahdaan kitaabka ilaahay qaata, waa nicmo ilaahay gaar ahaan idin siiyey waaye. marka waa inaad qalbi furun aad waakaasay ku soo dhowaysaan oodna gacan siisaan. kaalintiisa waa taas, ilaahayna wax badan aad ugu shukrisaan. liannahu kitaabka ilaahay waa kii ilaahay ugu talagalay koonka in lagu maamulo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qof bani aadana ciqaab lagu rido waxa ugu dhib badan dil. ilaahay dilkii wuxuu ku tilmaamay nolol inuu yahay, qisqaasta inay nolol tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay. marka kitaabka ilaahay haddii la hirgeliyo dadkoo dhan cadaalad ay dareemayaan, sinaan ay dareemayaan, sidii waa kaasay salafkayna waa kaasay ay ugu raahaysteen. taariikhda markii waa kaasay gadaal aad u raacdo ma arkaysid qof la dilay ama gacan laga gooyey wax fara ku tiris ah waaye. liannahu
kitaabka ilaahay xukunkiisa wuxuu daaweeyaa amraadda ijtimaaciga ah sidii amraadda cudwiga ahba kaniiniga iyo erbadaha ay u daaweeyaan marka kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa amraadda ijtimaaciga oo idin ay daawo u tahay mujtamaci waxay noqdeen dad isku duuban isjecel meel ku soo wada jeesta marka kitaabka ilaahay maanta waa la idin keenay soo dhoweeya ilaahayna ugu shukriya uma dadkii sabab u noqday ugu shukriya golaha maxaakiimta waxaan leeyahay xaqiiqdii hel culus ay idin saaran ilaahay waxaan ka baryaynaa xaqna aad nagu leedihiin aan barinno in ilaahay idin tasdiidiyo idin tawfiiqiyo wanaagga idin waakaasa idin tuso xuquuqda aad nagu leedihiin dhaacada ka sokow wahwaaye in laydin soo duceeyo laydin waaniyo xuquuqda aad nagu leedihiin waay marka insha allah haddii fursadaan usoo helno waa inaan idinka hakranin arrintaas marka waxaan leenahay tala ahaan waa in aad muwaasafaad maamulka ayaa ugu dhib badan dadka waa annaga soomaali haddaynu nahay burburka maadigaana gaaray waxaa ka dhib badan ka qoto dheer burburka macnawiga ah diiniga ah akhlaaqiga ah ayaa ka dhib badan nin kastaba ma yaqaano wuxuu daw leeyahay wuxuusan dan u lahayn ma yaqaano marka dadkaasaa u talaya laydin yiray helka idinku soo wareegay allah idinla garab gala marka waxaan leenahay macaayiir ama muwaasafaad sameeya oo waa dadkaad ku xulutaan kadibna ha u aabayeelina kadibna ha u aabayeelina waa hunuhunuuda dadka in badan oo ka mid ah akhlaaqiyaadkooda waa dhuntay waxay dawleen ma yaqaaniin marka taladaan soo jeedanayo wax weeye macaayiir laydinma sheegayo haddana waa dhahaynaa macaayiir dadka lagu xusho samaysta kadibna ha u aabayeelina mid hargeysa ka dhasha noo keena mid gaalkaayo ku dhasha noo keena mid jubbooyinka ku dhasha noo keena bes laakiinse muwaasafaadka islaamka un aan ka helno kaasu waa qodobka labaad ama saddexaad ragga madaxdayna ahaan jiray jazaahum allahu khayran aad baan waa kaase ugu faraxsanahay inaan u mahadcelinno wax badan bayna anahay khayriyaan ka shaqeeyaa wax badan bay gacanna siiyaan sheekh yuusuf iyo waxaan dhihi lahaa irfa wax badan bay gacanna siiyeen wax badan bay qabteen waddankaa iska kharibnaa waxyaala dhadhacay way jiraan waddankaa iska kharibnaa waa loogu cuduraa intaay qabteena ka weyn marka waxaan leeyahay tanaasulka aad tanaasulsheen waa idinku mahadcelinaynaa haddana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin bedelo waxaan hubaa meel ka fiican inaad tegi doontiin haddana dadka waa kaas hogaanka cusub oo ku wareegay idinka khubaro ah la talaya waa kaas meelaha oo waa kaas laga soo geli karo taladooda siiya feelkii degmada siiya kadibna ayaga u daaya ayagan saas ayaan leeyahay ugu dambayntii ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaana siiyey ayaa mahadnaq u celinaa uma waxaan mahadnaq u celinaa ragga guushaan u horseeday ilaahay sabab uu u dhigay xaqiiqdii mucjisadan ayaa la dhihi karaa guul lama dhih waa mucjiza ilaahigii waa kaasee nagu manaystay ayaa mahad leh ayagana mahad weyn oo asbaabta ay la yimaadeen ayay leeyihiin uma dadkii odayaalka meeshaan ka ahi jiray haddana tawcatan ayagoo waa kaase qanaaco ku qaba xilkaan inay wareejiyaan ayaga bannaanka ka fadhiistaan go-aankeeda gaaray ayaan u mahadcelinaynaa hada wabillahi tawfiiq وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oo markaa madaxda gobolka degmooyinka khudbadaha u qaybin doona markay gobolka arrinteeda dhammaatana waxaa kusii wareegi doona alqadiib cabdulqaalib oo isagana usii qaybin doona maxkamadaha islaamiga madaxdooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ilaahay baa mahad leh inaanan iskugu imaanin wax dad samaystay ama gaalo laga soo minguuriyey ama dad baa waa ku dhaqmi jiray laleeyahay annaguna aan iska raacnay oo ku dayasho ah
aan maanta ku wada hadlayno inaan qaadanay kitaabka ilaahay ee munazalka ah ee waajibka nagu ahaa ee in wax kale lagu dhaqmaa awalba ay dambi ahayd aysan se suurto gelin hadda waxay ka horreeyey ilaahay baa mahaddaas leh subxaanahu wa tacaala haddii aan gudagalo barnaamijkii aan usoo istaagay inaan ka hadlo oo ku aadan munaasibadda walaalayaal waxaan idinka codsanaya oon kala hormarayaa waqtiyadii hore oo la hadli jiray aysan arrintu ahayn diinta islaamka ayaan ku dhaqmaynaa dadku waxaad moodaa haddaysan aniga xusuustaydu xumaan intaan inuu ka firfircoonaan jiray xagga sacabka oo aad loo sacbin jiray haddana waxaad moodaa takbiirta oo wax la yidhaahdo oo ka qurxoon aysan jirin hal nin markuu yidhaahdo inta kale inay ka harayso oo aan laga daba lahayn markaa sidii ay ku fiicnayd ilama aha waxaan soo jeedinayaa takbiirta in la muujiyo lagu dhawaaqo la adkeeyo markuu qof yidhaahdana laga daba yidhaahdo waa wax fiicane waxaana weliba idinka codsanayaa inaan anigu ku bilaabo oo aad iga daba tidhaahdaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu barnaamijka gobolka qaybta ugu horraysa oo ah gobolku sida aad la socotiinba intii joogtay iyo intii saxaafadda ka dhagaysanaysayba intii maxaakimtu ay dagaalka ku jirtay iyo intii shaqada lahayaba waxa uu ka mid ahaa hawsha dadkii waday horyaalka ayuu ka ahaa waxaan u malaynayaa aniga oo ah xogayihii maamulka ee gobolka xogayihii warfaafinta ee gobolka ayaa ugu yaraa wixii aan ka qabtay wakhtigii dagaalku uu socday anna saxaafadda intaan la hadlay ayaan inta aan fahamsanayn waxaan u sheegay arrintu inay taagan tahay kalimatu buush hiya alculyaa iyo kalimatullahi hiya alculyaa buushaan ka soconnaa oo argagixisaan u raadinaynaa iyo kelimadda ilaahay ayaan korgaynaynaa oo diinta islaamka ayaan wax ku xukumaynaa inay taagan tahay oo markaa qof kasta oo islaama oo damiir leh ay waajib ku tahay inuu qaato kalimatullahi hiya alculyaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar barnaamijkayga haddaan halkaa uga dhaadhaco waxaan halkan uga soo jeedinayaa barnaamijka qaybtiisa koowaad aniga oo saxaafadda ka codsanaya maadaama aniga xirfadayda gaar ahaaneed ee gobolku ay tahay xogayaha warfaafinta inaan nidaamka dhowrno xibnaha kale ee iyaguna dadka la midka ahi aan meelaha kula kulanno maalin walba waxay yidhahdeen saxaafaddu markay shirarka yimaadiin maxay dadka sanka uga galaan dhibaata waa ay jirtaa oo saxaafadda ay u baahan tahay in qofkii afkiisii ay war ka helaan inay sawir ka helaan haddana shirka dhan looguma talagelin inta maqan keliya in wax loo gudbiyo ee intii la soo casuumay oo mudnaanta koowaad lahayd in la siiyo fursad oo ay wax ka arkaan oo ay wax ka maqlaan ayaan saxaafadda ka codsanaya inaanan ku celinna aad ayaan u jeclahay haddii aan u soo jeesto barnaamijka gobolka inaan dadka u gudagalo iyadoo loo baahan doono dhinaca midigtaa ee safka ka soo horjeeda madaxda in ay yihiin mas-uuliyiintii gobolka inaan dadka xusuusiyo barnaamijka bilowgiisii aan markaa halkaa intaasi waa tusaalayntii golaha fulinta maxaakiimta islaamiga ah ee soomaaliyeed golaha shuurada ee maxaakiimta golaha midooda maxaakiimta guddiga maamulka gobolka shabeellada hoose culamaauddiinka waxgaradka uqaasha iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed halkaan isugu timid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkayga haddaan u galo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose sheekh yuusuf maxamed siyaad ah xibin golaha shuurada ahna madaxa nabadgelyada ee maxaakiimta islaamiga ee soomaaliyeed barnaamijkii barista ayaan ku jirnaa ee maamulka aan idinku tusaaleynaya markaa dhinaca allahu akbar guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed xaaji cali baabow oo ka mid ah golaha shuurada guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka gobolka shabeellada hoose cali maxamed cumar cali berire oo ka mid ah golaha shuurada guddoomiye ku-xigeenka nabadgelyada maamulka gobolka shabeellada hoose colonel xuseen caliyow ibrow guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellada hoose geedi shiikhow cali abbaanduulaha ciidanka nabadgelyada maamulka gobolka shabeellada hoose nuuriye cali faarax xogayaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellada hoose haraadinina waa aniga hanti dhowrka gobolka shabeellada hoose cabdijamaal ismaaciil maxamed
xogayaha samafalka maamulka gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootole xogayaha bulshada cabdulaahi maxamed jimcaale khasnajiga gobolka cabdi cabdulla dhool maamulaha garoonka ceel axmed macalin cabdiraxmaan nuur diiriya cilmi ku-xigeenka maamulaha garoonka gudoomiyaha degmada afgooye magacyadu waxa ay isugu dhex jiraan sidii markii liiska la qorayay loo joogay aniga oo meeshooda kasii wadi doona gudoomiyaha degmada afgooye xuseen cali weheliye erfe oo ka mid ah golaha shuurada gudoomiyaha owdheegle muuse cismaan maxamed gudoomiye ku-xigeenka owdheegle cali kuus gudoomiyaha degmada kuntuwaarey salaad cali koofi gudoomiye ku-xigeenka cabdulqaadir maxamed aadan degmada jannaale ibraahim jabriil kuulow guudle ku-xigeenka sheikh caliyow degmada qoryooley aadan cabdi maxamed gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley ahna xibin ka mida golaha shuurada maxaakiimta soomaaliyeed abuukar xasan maxamuud baanje ku-xigeen cabdi axmed xasan cabdi siidow muuse xisaabiyaha gobolka shabeellada hoose xoghayaha shaqada iyo shaqaalaha cabdulqaadir sheekh cabdiwahaab taliyaha ciidanka nabad sugidda ee gobolka xasan sagaar ciddii aan liiska aanan ka yeerin ujeedadeedu ma aha inaanay maamulka gobolka ka tirsanayn ee intii ii qornayd oo aan ka gaarsiiyey ayaa intaas ah haddii aan dhinaca maxkamadda u leexdo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka shabeellada hoose sheekh sayid abacali الله أكبر ولله الحمد gudoomiyaha maxkamadda gobolka sheekh barre cusmaan xuseen allahu akbar ku-xigeenka xogayaha warfaafinta maxamuud axmed suuriye xogayaha caafimaadka xasan mire xareed intaas haddii aan ku dhaafo intii iiga suurto gashay ayadoo aad moodid aniga laftigaygu shirarkii aan ka hadli jiray shirkan inuu ka waasacsan yahay oo farxad intii hore ka badan ay ugu jirto magacyada ma kala qaldi jirin kuwa aanan qorin ayaan ku dari jiray laakiin maanta waxaad moodaa kuwa qoran xataa inaanan si fiican u arki karin mana aha fagaara ka nax ee waxa iga keentay farxadda waa ka xumahay wixii aan iska iloobay horaan idinkugu sheegay gudoomiyaha degmada baraawe cabdullaahi xalana dhuxulow howlo jira owgood oo fasax u qaatay ayuu ku maqan yahay
haddii aan u guda galo xaggii barnaamijyadii gobolka ugu talagalay halkan inay maaragtay kasoo anigoo weliba u jeedinaya dhammaanba mas-uuliyiinta iga dambaysa ee hadda aan ugu yeerayo inaan waqtiga dhowrno oo qof walba uu ku talagalo in annaga martina loo yahay isla markaasna nala ka rabo inaan waqtiga dhowrno oo dadkana wixii aan u sheegayno ay noqdaan wax kooban oo la qaadan karo waxaan ugu horraynta ku soo dhawaynayaa guddoomiyaha degmadiisa martida loo yahay oo ka tirsan guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka shabeellada hoose isla markaasna ka mida golaha shuurada maxaakiimta islaamiga ee soomaaliyeed xuseen cali weheliye erbe الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نورينتا waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa guddiga maxaakiimta Soomaaliyeed madaxdiisa sare waxaan rabaa horta marka koowaad inaan dadka dadweyne badan ayaa ka soo qayb galay xafladan maanta waxaana laga yaabaa dadku inaysan aqoonin maamulkii gobolka ayaa dadka halkan laga baray xafladda fadhiyay maxaakiimtaba ayagana waxaan rabnaa inaan halkan ka barano maadaama gobolka shabeellada hoose aan nahay sidaas darteed waxaan rabnaa sida aan noo barateen adinkana aan idin barano ama gacanta u istaagtaan ama aad u istaagtaanba waxaa ugu horreyntii halkan maaragtay guddoomiyaha guddiga fulinta sheekh shariif sheekh axmed الله أكبر الله أكبر الله أكبر كوينك كوا شيخ عبد الرحمن محمود فارح تنغو الله أكبر الله أكبر كوينك كوا شيخ عبد القادر علي عمر الله أكبر الله أكبر فريسة فضل انت عم برينا ذلك فريسة قليل انت عم برينا ذلك فريسة قليل كليين كلمات قراءة فرينتا الشيخ عبد القادر علي عمر الله أكبر الله أكبر ما عمي وقراءة محاكيمة الصوماليات واتغانا وشيخ يوسف سياد محمد عند عداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كوالين كيس كوات ومان تصنع حفلة الشوغة شيخ مختار روبو أبو منصور ضدفوا أكو أركان ونبو أركان الله معلن هاشم معلن محمد قدومية سياسة حمر إيا حمر ضياء الله أكبر الله أكبر إنجنير عمر أفتوش مدح ديبوديسكا قراءة محاكمة الصومالية شيخ محمود شيخ إبراهيم السولي حوية قراءة شورى محاكمة الصومالية قدامي كعلين كوهذا قراءة شورى دكتور الشيخ عمر إيمان هل كان تقول فريان يا عمر الله أكبر مدح عافمات وقراءة محاكمة الصوماليات الشيخ مختار الشيخ نور الدين محمود الله أكبر runtii ma kala gaaro oo hadda qabanqabna laakiin ku ayaan badan ayaa fadhiya iyo golihiisa shurada mas-uuliyiin ka socota gudoomiyihii kacdoonka gobolka banaadir difaaca iyo diinta sheekh axmed qare allahu akbar allahu akbar waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheegtaan qofkii aan aqoon maadaama aan baanaan u oqonin gudoomiyaha xiriirka gobolada sheekh farax allahu akbar okay intaas waa nooga filan tahay inta kale oo aan maarta magacyadooda ka tagnana ayagana naga raalli noqdeen waxaa kaloo fadhiya dhabarkayga oo aad iyo aad u badan gudoomiyaashii iyo gudoomiye ku-xigeenadii maxkamadaha gobolka banaadir allahu akbar allahu akbar iyo fuud badan oo la socota
intaas daan ugu gudbo isbarashadii aan baranaynay gobol ahaan mas'uuliyiinta noo timid haddii aan nahay gobolka Shabeellaha Hoose waxaan naga guddoontaan salaan qaali ah oo huwan cadadka quraanka kariimka intaa kadib waxaa farxad noo ah aad iyo aad aan maarta la soo koobi karin maanta aad iyo aad ugu weyn qalbigeenna iyo araggeenaba hadda ka horna aan soo arkinin xafladan aad nagala soo qayb gasheen maxaakiimta Soomaaliyeed nagala soo qayb galeen ujeedadeeduna ay tahay furihii ugu dambeeyey ee wareejinta gobolka Shabeellaha Hoose dadka waxaa isaga qaldan in badan idaacadaha ama raadiyaasha ama dad badan oo fadhi ku dirira ayaa waxay yiraahdaan gobolka Shabeellaha Hoose maxaakiimtu ma tagaan gobolka Shabeellaha Hoose maxaakiimta inuu ka mid yahay ayaan anagu qabnaa aan ognahay dadka hadaysan la soconna waxa weeye inay saas ula socdaan ayaa fiican maanta maadaama ay nagu badatay arrintaasi oo dal iyo dibadba ay nagu badatay mas'uuliyiinta gobolka shirar badan oo ay sameeyeen fadhiyaal badan waxaa noo suuro galay ama ilaahay maaragtay waafajiyey in war xunba la waayo gacantana aan u gelino furihii ugu dambeeyey ee gobolka Shabeellaha Hoose maxaakiimta golaha maxaakiimta Soomaaliyeed intaas waxaan rabaa inaan ka iraado guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose haddii aan u soo laabto xafladda degmada lagu qabtay Afgooye oo aan ka ahay mas'uul ka ahaa muddo dheer oo 10 sano wax badan aan qabanay wax badan maaragtay aan qaban weynay la ajla wixii wadanka ka jiray ayaa waxaan rabaa inaan dhowr ka iraado maamulku wuxuu degmadan yimid aan mas'uul ka ahaa 22 bishii 1995 kadib markii xaalada ammaan xumo oo aad u xun ay ka jirtay degmadan iyagoo dalab ka yimid waxgarad ka tirsan degmada Afgooye ay u adkaysan waayeen jawiga xun ee ammaan darre ee ka jiray degmada oo aad u badnayd dhimasho macna darro ah oo ka dhici jirtay degmadan iyo agaarkeedaba imaanshii maamulku yimid degmadan wuxuu la tashi la sameeyey odayaasha dhaqanka isagoo maamulka u bandhigay inay wiilashooda ka soo qayb geliyaan dib u soo celinta ammaanka degmadooda waxay intaas ku soo celiyeen in maamulka ay dusha u rito dhibaatada ka jirta degmada waxna ay ka qabtaan waana uu qaatay maamulka arrintaas markaas kadib wuxuu maamulku la tashi la sameeyey qaybaha ganacsatada kala duwan iyadoo qayb ugu yeeray si loo qaabeeyo dhaqaalihii suuro gelin lahaa ammaankii degmada sidaas ayayna ku bilaabantay ururinta dhaqaalaha ee suuro gelisay ammaanka ka jira degmada waxaana caddayn u ah inuu ku yaallo suuqa xoolaha ugu weyn waddanka Soomaaliyeed iyadoo wax ammaan xumo ah aanu ka jirinin arrimaha bulshada hawsha ugu ballaaran ee maamulku qabtay waa arrimaha bulshada iyadoo hawshaasi ay tahay mid aad u dhib badan waayo ma jirto dhaqaale saamixi kara in qof dambiile ah oo muddo dheer meel lagu hayn karo marka waxaa qasab ah in sulx loo helo iyadoo arrintaasi markii dambe naga codsadeen maxaakiimta Soomaaliyeed ay naga saacideen maxaakiimta Soomaaliyeed ee ka furmay ugu horreyntii gobolka Banaadir howlaha xalinta isqabqabsiga bulshada dhexdeeda hadday ahaan lahayd mid beereed mid dhuleed mid lacageed iyo wixii la mid ah aad u tiro badan waxay hakiyeen howlihii kale ee maamulku qaban lahaa ee horumarka degmada ahaan lahaa horumarinta maamulku wuxuu wax ka qabtay buuxinta qaybo ka mid ah wadooyinka biyaha deegaanka ah iyo sidoo kale dayactirka 10 buundo ee ka tirsan degmada Afgooye maamulku isagoo kaashanaya daarta aqoonta iyo horumarinta degmada Afgooye wuxuu oola ballaaran ku qaaday si dib loogu furi lahaa isbitaalka degmada Afgooye wuxuuna suuro geliyey inuu kulmiyo qaybaha bulshada sida beeraleyda ganacsatada
shirkadaha isgaarsiinta xawaaladaha hay-adaha ka howlgala degmada hooyooyinka iyo dhammaan dadweynaha degmada Afgooye oo dhaqaale ku bixiyay dayactirka isbitaalka maamulkuna wuxuu bixiyay lacag dhiirigelin ah oo ay qaataan 39 shaqaale ah ee ka howlgala isbitaalka degmada Afgooye waxa intaas dheer wuxuu bixiyaa maamulku qarashaadka kale oo isbitaalku u baahan yahay waxaan xasuusinahay waxaan qaban jirnay maanta ka hor adiga ayaa askari ah ilaa waajib madaxweyne qabo soo qabo eeduna waa kuwa kaliga weliba reebelaata waxaan u hurnay dhiigeenna dhaqaaleheenna nafteenna ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana degmada uga dhintay Afgooye saraakiishii iyo ciidamada ugu firfircoonay xilligii lagu jiray dagaalka waxaana ku uryaamay kuwa kale oo maanta sariiro u saaran sidoo horebaan caaradka ugu ahayn difaaca diinta iyo dalka ama ku hadlay magaca gobolka Shabeellaha Hoose ama gaasatanka degmada Afgooye waxaan ballan qaadaynaa maanta laga bilaabo in xadka Soomaaliya sida yeed feerfeer balambal iyo wixii lamid ah maanta dhufays aan ka galno Allahu Akbar Allahu Akbar xanti aarta maanta waxa Shabeellaha Hoose furii ugu dambeeyay lagu wareejiyay golaha maxaakiimta Soomaaliyeed mas'uuliyiintii ugu sareysay sheegi doono maxaad bari sheegi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Allahu Akbar oo ka mid ah golaha maxaakiimta Islaamiga haddana waxaan u yeerayaa oo ku xijinayaa mudoomiyaha degmada Kuntuwaarey Dalaal Cali Koofi aniga oo markasta ku soo celinaya in annaga markii loo yahay haddii aan nahay maamulka gobolka oo dadka inaan khudbada ku dheerayno ay ka fiican tahay inaan soo daabino oo laba xaraf oo la fahmi karo aan u soo koobno si waqtiga oo kulul iyo iyadoo la sooman yahay aan u tixgelino marka hore waxaan salaamayaa golaha maxaakiimta islaamiga ah waxaan ku xijinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meeshaan nagu soo dhaweeyay haddaan nahay gobolka marti sharafta ka timid waxaan moodaa warkii aan qaadan lahaa in saaxiibkay iyo hore qaatay marka waa ku taakiidinayaa oo kaliya waxaan run ahaantii in la sheego mudan golaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose wixii uu ka qabtay gobolkan iyo qaasatan anu degmada aan joogo waxaan ka qabanay markaan soo koobo degmada Kuntuwaarey oo anu aan joogo waxaan ka qabanay ruuxantii aad iyo aad baan ugu dadaalnay inaan nabadgelyo sugno inaan beeraheeda iyo dadweynaha wax ka arrimaha bulshada wax ka qabanno ilaahayna waa nagu guuleeyay haddii aan maamulka sare ee gobolku istaagin ruuxantii meel ma gaarneen aad iyo aad baan maamulkaas gobolka markuu uu yimid aan ku diirsanay wax badan uu ka qabtay gobolka Shabeellaha Hoose marka waxaan leeyahay sidii walaalkay hore cirfada u sheegay hadda waxaan maqlayay idaacadaha iyo leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose hore u sii dhaafaysan gadaal u dhaafaysan waana idinku dhawiyo maxaakiimtu maxay u teeynayeen hadda gacmo furan ku soo dhaweynaynaa awalna waa ka tirsanayn waa soo dhaweynaynay waana kula jirnay qalbiga iyo codka iyo xooga iyo intaan kari karnaba waa ku taageeraynay haddana gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa inay maaragtay wax nala qabtaan waayo ninka ku yiraahda diinta islaamka qaado oo kitaabka isku xukun hadda diinta wataan ku dhalanay oo ku dhaqanay oo maaragtay ku noolayn haddaan isku xukunaa waxa weeye aad iyo aad ay u fiican tahay waana soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay cadowga nagu soo fool kale oo mar walba la daandaansanayana hadda ushu geedkeeda ku taawaa oo Itoobiya haatan looga taaglayahay oo macnaha wixii aan isla marnayn hore u ogeyd marka sagiir iyo kabiir baahiyay iyo hooban la garab taaganahay maxaakiimta waxaan ka codsanaynaa sidii walaalkii mid hore uu kaftamay dadka in la soo wada dhaweystaan maaragtay ka codsanaynaa waayo wax la farayo maahan xog bay u hayaan laakiin waxa lagu xantaa oo maaragtay xamashada ka jirtay si walaalkii alla kaftane raalina iga ahaadeen macnaha waa maaragtay gacan adagtii gacmaha la furo wixii la hayana hada wada qaybsado
hawl dhib iyo dheef baa la wada qaad waa salaamintii waayaal waan idin soo dhaweynay waqtigaas aan ii saamaxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي ولا ليال ضمان مسلمين تكسر بشيء حفلدان وسلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسؤولين محكمة شباب داير ماشي كسر قلي معمول كقول أنا وانتي معمول دقميات عن كاهاي ضمانتين وسلامتين اوكي بعد السلام انا قام فرنا يعني كسر ويننا محكمتها اول ما شقيني وانا كمدهن حدنا انا ير walaalkay dagaalada kamid aha oo naawamay guriyay taas waa cadeynaysa in anaga dagaalka iyo maxkamadaha aan kamid ahayn oo hadan diyaar u nahay ilaahay idinkiisa anaga gibigeena dad islaam aan nahay diinta islaamka xil baa naga saaran dalkan xil baa naga saaran okay diinta xilka naga saaran yahay wuxuu yahay inaan sare aan u qaadno oo magaceeda aan ku adkeysano oo la ilaaha illa allah kalmada ilaahay oo kaliisa inaan ku adkeysano ayaa xaqaasa naga saaran diinta oo sare aan u qaadno oo qiimo aan siin diinaha oo gaalada ee mataqaanaa dadka qiimanaya oo islaamka gadgadanaya aan qiimo aan la siinin oo niyad aan la jeclaysanin dad badan qaabkaas jeclaysta oo ma soo jeedinayeen oo la jiray qoomkii burburay oo 16 sano wadanka burburkii oo halaaga ugu horseeday dad badan niyad ka taabacsan ama ka taabacsan hadaba la yeel karay aan u maleeynaa inta joogto aan raali idigu ayaa okay diinta halkaas naga saaran dalkan waa halkii halaan naga saaran halkan naga saaran dalku uu yahay inaan daafacno habashada iyo wax sifir wadaanka dadka oo dalkeena qayb ka haysta oo shanta geeska Afrika yani shanta Soomaaliyeed qayb kamid ah haysta inaan ka dafaan hadda soo socod hoos u soo galay inaan ka qabanno aan ka daafacno ayaa dalkeena yani kaasoo sayn halkiisa naga saaran yahay ilaahay idinkiisa walaalayaal yani anaga qodbada ku dheeraaday waa maalin soona marka koowaad yani dalka iyo diinta aan qorona oo qaadana aan dafaan numberka labaad maxaakiimta islaamiga waxaan tala aan u soo jeedinaa anigu shakhsiyan kan adeer ahaan oo gudoomiye degmo ahaan in aan baahasha aan noqonin tafraaruq yani guul waa la gaaray yani in la adkaysto ilaa heer dawladnimo iyo madaxweynenimo loo sii gudbiyo baash la gaarsiiyo yani kuwa banaanka isku soo dhoobdhoobay ibtilada ilaahay annaga dan looma hayaan ilaahay aan ka absan wallahi ku dhaartay niman Allahu akbar kuwa banaanka muqaddar kuwa banaanka shariir ku soo qabtay oo waxa uu dabakariha wadan ku soo wado oo gaalo soo wad wallahi dan looma hayaan Sheikh Sharif iyo mas'uuliyiinta kale inay sii wadaan oo aysan aajisin ilaahay dadaalkeena ha ku darmaan leenahay annaga ummadda Soomaaliyeed hadaan afka ummadda Soomaaliyeed ku hadlay iyo keeyaba yani diyaar ayaan u nahay in sare loo qaado diinta dalkana xukuumad Soomaaliyeed oo islaam ah in la yargina diyaar u nahay ilaahay Allahu akbar وأقوم أحسنتين قدوة وأقول إرادي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول دقلة موسى إسمان محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سيدنا وسلم. وحان سلام سو بدنا يا قدية مدوغا محاكينتا قدية تنفيذك يا قدية شورا madaxda gobolka Shabeellada Hoose iyo degmooyinkiisa iyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaan kadib wax yar markaan ka taabto degmada Awdheegle waxay ka tirsan tahay gobolka Shabeellada Hoose aan aniga gudoomiyaha ka ahay. Markaan ka hadalno maamulkan hadda ka jira iyo qaabkan waxaan ku biiray maamulka Shabeellada Hoose 18 Febraayo 2004 ka hor degmadu waxay ahayd degmooyinka sida degmooyinka kale ba xaaladda dhibaatooyinka badnaa ay dalku soo maray burburkii iyo hebay ku sugneed
waxaan maamul raadinaba waxaa ilaahay inoo suurtageliyey inaan la helno maamulka gobolka shabeellada hoose markaas ka jiray inaan ku biiray 18 febraayo sanadkii 2004 alxamdulilaahi rabbil caalamiin amni darre badan oo ka jirtay deegaanka iyo dhibaatooyin badan oo iyadana amni darradaas uun ku saamaysay oo tacabkii beerihii iyo dhaqashadii xoolihii iyo wixii oo dhan baabi'ay ku jiray ilaahay waa naga soo gudbiyey bismillaah laga soo bilaabay xilligaasi maamulkii gobolka iyo asagana wuxuu noo ogolaaday markuu arkay burburkii degmada ay ku sugneed markii maamulka la dhisay oo deegaanku isdoortay maamulka lasoo doortay ayaa wuxuu noogu deeqay inuu xataa meel la fadhiisto markii laga waayey in xafiisyadii la fadhiisan lahaa oo shaqada lagu fulin lahaa degmada howlaheedii iyo adeegyadeedii iyo waxyaabo badan kulley oo dhaqaale badan ku baxay ilaa 2 sano maamulka gobolka uu ka taakulinaya xataa mushaarooyinka ciidankii iyo wixii ku bixi lahay tasiilaadkii uu bixinayay gobolka ayaa degmada loo ogolaaday in wixii xafiisyadaas sida saldhig boolis oo hadda degmada ku yaalo iyo iskoolka waxbarashada xarun caafimaad oo MCH meesha ku taala iyo dhismahoodii wixii dhammaan isku dabariday maantana haddii la arkaa hadda waxaa loo malaynayaa haddii meelaha ugu wanaagsan oo dayactirka iyo dib u habeynta badan ay ka muuqato marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin markaan usoo laabto maxaakiimta islaamiga ah waxaan ku jiray gobol ahaan degmada Awdheegle iyo sidii gobolka dhammaanba degmooyinkii sida aadka ah u taageersanaay maxaakiimta islaamka haddana maanta waxaan uga soo qayb galay halkan inaan ku muujino inaan ku faraxsanahay in xilkii lagu wareejiyo maxaakiimta shariicada islaamka marka sidaas darteed si farxad leh anoo matalaya kuna hadlaya codka degmada Awdheegle waxaan leeyahay guddiga maxkamadda ku soo dhawaada degmada Awdheegle sida gobolka shabeellada hoose ee kalaba wabillahi tawfiiq gaar ahaan dadku waxay moodaa inay aad u dhulxinayaan oo aysan weliba maamulka gobolka shabeellada hoose iyo dadka ku noolba aysan maanta qoor fursad helin madaxda sare ee maxaakiimta islaamiga soomaaliyeed in ay bismillaahi raxmaani raxiim سلامة المسلمين وحواه مارت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوغا وحق حماي مارت حوغيا ورفافين تأوكو هدلي مارت جيد جنالة تا وحواه مارت وحن ليه جيد جنالة لما يراه الدقمير جنالة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وحواه أنا وكو هدلي ومقع مارت دقمير جنالة قولك شويلة هوسي وحواه جنالة سنة أتكور قبطان marxalado aad iyo aad u culus ay soo martay waxa way degmada afgooyay waxay ka tirsan tahay gobolka shabeellaha hoose janaal dad ka warqabtaan maamulkan ka hor wuxuu ahaa meesha lagu ciribtiro ummadda Soomaaliyeed islaamiinta oo maarta oo gobolka shabeellaha hoose khaasatan maarta inta ku nool maarta Soomaaliya dhan waxay isku imaataa maalinta Jimcaha janaale meelaha lagu ciribtiriyay maanta nasiib wanaag waxaa ilaahay noo soo diray Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacadde iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose Xaaji Maxamed Cali Baabo iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda Cali Dariiro iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha nabadgelyada iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maarta bulshada geedi sheekhu taa ilaahay mahadiis waaye maamulka haddaan kaaga soo hadlay janaale maalintii Jimcaha waxaa lagu dili jiray ugu yaraan 15 qof ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dili jiray waxa waa maarta taa waxa waa maarta ku ciribtirkii islaamka maarta meesha lagu ciribtiray ay ka tahay taana waxaa daliil u ah maarta dadka sheegtay la dagaalanka argagixisada oo maarta dadka sheegtay ayaa maarta ka dambeeyay falkaas haddaan ka soo hadlo maanta nasiibka maarta aan yeelanay oo ogolna aan haysanay janaale waxa way maarta markii Sheekh Yuusuf iyo maarta madaxdiisa gobolka oo ah maarta guddiga cadaaladda ee gobolka shabeellaha hoose oo maarta Sheekh Yuusuf hormuud u ahaa ee gudoomiye ku-xigeenkiisa Maxamed Xaaji Baabo dhammaanba markii maarta gacan bir ay ku qabteen maarta gobolka shabeellaha hoose waxa way maarta islaamnimadii iyo nidaamkii ay meesha ay ka dhiseen janaale iyo nawaaxigiisa waxa maarta maanta ay maarta aad iyo aad lagu guuleystay xag nabadgelyada sida ay ka warqabo dhammaan wixii Soomaali inta ay joogto waxaan arkaa maanta maarta fidh ku dirada iyo maarta dad badan oo ku soo wado been waa xuntay waxa way ruucad waa cadahay maarta وعليه وما بن عمد ربك فحدث إلهي من عبي إلهي كسيي وحارون إن الشيغو أو لتسو
gobolka shabeellaha hoose maanta markaa leedahay maaragtay xil waaye ama kan waaye weligiisa xilka waa haayay gobolka shabeellaha hoosena diinta islaamka buu ku dhaqmi jiray waxa waaye markii la dagaalankan hadda argagixisada la sheegayo waxaa maaragtay oo maaragtay degmada ama gobolka lagu beegsaday bam oo maaragtay ay soo dhiibteen qolada sheegatay la dagaalanka argagixisada annagoo taageereen markaas xoog iyo maaragtay maalmo iyo maaragtay wax kasta aan ku taageereen maaragtay madaxda maxaakiimta ee Soomaaliyeed oo noolo maaragtay tiblaayay in bam iyo qarax nala soo gaaro sida maaragtay gurigeyga lagu soo rido oo meel kasta lagu soo rido gobolka lagu soo rido intaa wuxuu ahaa maaragtay dagaalka aan la jirnay maaragtay qolada maaragtay argagixisada sheegatay taa maanta waxaa nasiib wanaag ah in maxkamadaha oo maaragtay maanta ilaahay noo keenay aan ku mahadano waxaa maaragtay nasiib dara ah markii la yidhaaho allahu akbar allahu akbar allahu akbar la yidhaaho waxaa la rabaa maaragtay si khiirad ah in loo yidhaaho ma allahu akbar ma aha maanta nabadgelyada maanta aan haysano gobolka shabeellaha hoose wax maanta weligeed ma soo mara ma ahan sida aad ka warqabtaan gobolka shabeellaha hoose maamulka ka dhisan waa maamul federaal ah sida hadda maaragtay military aad ka warqabtaan waa maamul federaal ah oo cadaalad ah oo maaragtay si nidaam ah u sii socdo ma aha maaragtay wax oo maaragtay kuturkuteen ah waxaan leeyahay maaragtay maadaama hadalladii aan ku sii dheeraaday annagu waxaanu nahay maaragtay gobolka shabeellaha hoose waxyaalaha maaragtay jiida janaale maaragtay jiida janaale markaan ku leeyahay degmada janaale waxyaalaha ay qabteen degmada oo maaragtay Sheekh Yuusuf uu qabtay waxaa ka mid ah maaragtay kanaalkan la yiraahdo maaragtay kala barimo oo maaragtay oo ummad badan oo maaragtay gaajo ugu dhimatay beeraha ku baaba'an maanta nasiib wanaag waxaa maaragtay gacan bir ay ku qabteen kanaalkaas kala barimo oo maamulka maaragtay islaamiga uu sameeyey intaa waxaa kale markii maamulkii maaragtay Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacde iyo maxaakiimiintii waxaa maaragtay nasiib wanaag noqotay in la qodo kanaalka la yiraahdo kala jiddo oo ka baxa maaragtay kanaalkaas maaragtay webigaas ka baxa waxaas waraabiya hanta wadaag wadabley oo dhammaan awaaraha iyo maaragtay dhibaatada maaragtay soo aad u baabaysay maanta nasiib waxaa ah in maaragtay kanaalkaas maaragtay la sameeyo waxa waaye taa waxaan ka leeyahay maamulka gobolka iyo madaxda maxaakiimiinta guul ilaahay ha siiyo hadalladii waxaan ku soo gabagabeeyaa dadka dhahay maaragtay maxkaamiinta maanta sida maxkaamiinta weligaa maal oo weligaa waa garab taagnayna haddana waxaan diyaar lanahay in aan diintaas aan la shaqeyno ogolna waa la shaqeey jirnay annaga shabeellaha hoose waxaan u ahayn maaragtay maxkaamiinta haddana waa taageerina haddana waa naibo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar nabadgelyada maamulka gobolka shabeellaha hoose si uu uga yidhaahdo arrimaha nabadgelyada xaalada ay soo maran diidada hadda joogaan allahu akbar 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 lillahi alhamdu bismillah horta annaga waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo oo ku saabsan xagga nabadgelyada ka hor intaanan ka hadlin ayagoo raalli layga ahaaha oo madaxda midowda maxkamadaha iyo madaxda kale gobolka shabeellaha hoose iyo dadweynaha guud ahaan inaan loo fahmin inaan kaftan rabaa inaan wax cudurdaar ka sii inaan wax kale idin fahmin ayaantii qoladii oo argagixisa la dagaalankii ay ururkii magacaadeen oo ilaahay nasriga oo u bedelay waxaan weynay 300 qofood oo isu timaado oo intay isu timaado qoryo qaadato dadkaas diinta islaamka cadowga ku hor tagta waa weynay bacdeen meeshaan xifladda lagu dhigayo oo degmada afgooy ka tirsan hadda 500 qofood ka badan ilaa kuma ku sugan markan ciidamadeenadu ay bateen oo guushi leeyahay awgeed ciidamadu bateen hadda jihaadka diyaarka u ah arkaayo wax kale arki maayo raala laga ahaado bacdeen waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha nabadgelyada gobolka shabeellaha hoose waxaa ka hadlay madaxda horeeyay oo degmooyinkii iyo dad rag kale oo xogaal u ah
horta gobolka shabeellaha hoose guud ahaan nabadgelyadiisu waa boqolkiiba boqol la dhihi karaa. waa xilliyo badan buu soo maray laakiin xilliyadan ugu dambeeyey oo markii laga soo bilaabo 2003 wixii ka dambeeyey gobolkaas wuxuu ahaa gobol ammaan ah. annaga laakiin waxaa jirtay ayaantii dagaaladii iyo wixii dhacayeen xogaa waa nala hinjiri jiray waxaana dhihi jiray waraadinka tug aad tihiin wadaadama aydin gobol asbaara intaa leh maxay gabadhiga wadaadada haddii wadaadada la dhameeyo adinka waa la safraa haddana markii xogaa la guulaystay haddana dacaayado yaryar aa iska soo baxay yaraa isoo wuxuu ugu yidhi hadda kahor meelahaas gabadhaa jooga ayaana dheere wuxuu ugu yidhi warri cabdul qoladan oo baydhabo joogto amxarada keentay waa ka xuntiina ka warramay war maxaa jira ay saaxiibo atarnimada iyo say waxan ka qoraan uma qoraan qolada amxarada keentay adinka waa aad wax la ka qoraan marka hadda waa alxamdulilah shukr rabbil caalamiin waa baalkii inkastoo wixii maxanta dhan waa iska cafiyeynaa gobolka guud ahaan dadku waxayna wax ma jireen maanta nadiif ku yahay waa la qaadana dadka xantiyana qabalnay waana nadiif ku yahay wixii ku xama jiray waa la kontrooli karaa dadweynaha iyo midowga maxkamadaha madaxda midowga maxkamadaha intaba way kontrooli karaan. marka waxaan rabaa inaan hadda maadaama waqtigu yaryahay intaas ku soo gaabsho. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada hoose maxamed xaaji cali baabow ahna xubin ka tirsan golaha shuurada maxaakiimta islaamiga ee Soomaaliyeed. waxaad moodaa in dadku xogaa cays ay muujiyeen si ay noogu soo gaabato ilaahay idankiisa xogaa cayska la iska bixiyo nin walbaana wuxuu qalbiga ka jecel yahay natiijada ugu dambaysa oo ah golaha maxaakiimta warkooda ugu dambeeya inuu dhageysto. marka الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوة فلنتا وقدومي ويهي الشيخ شريف حبناها قدوة فلنتا dhammaan xubnaha kale ee golaha shuurada ee maxaakiimta Soomaaliyeed ee ka soo qaybgalayaasha shirkan madaxa gobolka Shabeellaha Hoose uu hogaaminayo guddiga maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad oo ah madaxa nabadgelyada ee golaha shuurada iyo gudoomiyaha golaha shuurada dhammaan ka soo qaybgalayaasha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha xubnaha golaha muxuu ahay maxaakiimta inta kale oo joogta halkan madaxda maamulka gobolka gudoomiye ku-xigeenada xoghayayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose siyaasiyiinta guddiga muxuu ahay degmada Awdheegle uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Irfa inta deegaanka degan ee gobolkan ama degmooyinka ama degmada Awdheegle oo amaanta martada u nahay oo laga soo qayb galay dhammaan afgooye waxa waaye jaceelka oo yahay iga batay runtii waxa xafladan farxad weyn ay iga muuqato maanta inaan ka soo qayb galno annagoo midaysan maamul ahaan in maxaakiimtii ummadda Soomaaliyeed ee gobolka ama waddanka Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno halkan maadaama aan nahay mas'uuliyiintii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu hogaaminayo Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade. haddii aan wax yar ka taabto gobolka Shabeellaha Hoose maamulkan wuxuu urtay 2003 bishii Agoosto ayaa maamulkan gobolka ka urtay asigoo ku urtay rabitaanka dadweynaha ee dhibaatadii haysatay dadka bulshada gobolka Shabeellaha Hoose ee laga bilaabo muxuu ahaay gobolka intiisa dhan ee lagu geeyo ilaa jilib gasho waxaa gobolka muxuu dhibaato ka taagneed waxaa ka mid ah isbaarooyin badan oo jidka yiilay oo ummadda maalinkii ay maraweysay habeenkii la marawaayay sababaha aawgeed ay tahay nabadgelyo xumo oo dadka muxuu ahaay ay jidka fadhiisteen kuwa muxuu ahaay qaado dariiq ah oo ummadda ku laayay halkaas gobolka markii gobolka ka dhashay maamulkan
وشيخ يوسف أسفل منايو وحصائف بعضي إن نبتقل بوح لله يلو وأمد الصوماليات لولا عليه لميايو ومال وصول الجيستو حق النبتقل ذا حق الدقالها حق وحبرشة عافماتك انت بقى محوها يقبلك محوها كامل إلها كامل هو كامل كنا خوي نبتقل يمركي له لي تاس ومحوها رنتي برشدة دقوينك ودن لدسي وقبلك ودسي كهرا واحدة أي سنجيران سلا حقيقة warbixin taas dheer ma rabo inaan bixiyo waxa iga dambeey doona gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo halkaan fadhiyo warbixintaas asiga qusaysa laakiin waxaan ogahay sida xaqiiqadii dadkii la jaan qaaday oo garab istaagay maamulkaas ayaa ka mid ahay asigoo hantay iyo muxuu ahay maal iyo muruq iyo dadnimo muujiyay oo halka gobolka asaha oo aan ognahay nin walba gurigiisa ayaa loo geli jiray haweenkii waxa la dhigi jiray runtii markii idin sheego muxuu ahay guriyaha hadii la dhisaayo waxa la dhigi jiray waxyaalo oo aad u qaabdaran oo foolxun oo dadka guriyaha dhisaayo leeyahay oo aan turaab leeyahay waxa dariisha dhisaayo lacag laga qaadi jiray guriyaha hadii guri la xaarahay lacag laga qaadi jiray gobolka Shabeellaha Hoose runtii markii idin sheego waxa dadkii joogay oo xaadirka ahaa kamid ahaa marka maamulka hore dhibaatadaas ayaa loo geystay dadka waxa ilaahay ka dul qaaday maamulka gobolka ka dul qaaday dhibkaas maanta waa ilaahay mahadiis heerka hadda joogno oo guddiga shuurada maxaakiimta iyo golaha maxaakiimtaba ay wadanka ku orteen oo maamulku uu garab istaagay dadweynaha kacdoonkii ka bilaabay xamar iyo magaalooyinka kale ee ku dhow maanta lagu najaxay oo intaan lagu gaaray waxaa leenahay hore ana u dhaqaajina maahan dib u soo laabo doono haddii ilaahay naftana uu simo anagoo kaashahayno dadweynaha iyo culumada diinka iyo waxgaradka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada intaba anagoo kaashanayno dib u soo laabo doono waa wadi doonaa marka wax badan baa faraha meel ku taagay anaga hadii amaamul lahay maanta waxa filaa in faraha lu taagay doono maxaakiimta oo runta wadaan daacad u ah wadanka waxa ogahay in kormeer lagu sameeyo gobolka wixii oo gobolka uu qabtana la arko aad u jeclaa laheene marka waxa ku soo dhaweeyaa mikrofoonka aniga codka ina dheereeyo araban gudoomiyaha gobolka oo ah midowga maxaakiimta kamid ah guddiga nabadgelyada madax u ah mudane gudoomiye waxaan ku soo dhaweeyaa mikrofoonka ina kelmada hadi wanaagsan halka aad ka soo jeediso awoo waxay ku mahadsan waa mahadsan in tanan inuu jamaa ku soo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هذا السكالة سوك هيك أنا ماشان ونسوك هيك القبيل ونسوك هيك الدين الهان ونسوك هيك الدنكلة ونسوك هيك الدين إلهي إله سلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وروح أموانا يقولون قولون سيادة الله وروح يسير إلهي ما كبغلان سو ما تكبير ما وعودا واغا ما تكبيرتان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مركا وعن ضمانه ما دعينا يا كسوغ القلياش حفلدان أنا كلا صار صارم maadaama waqtigii salaada duurunaayo intaas kadib waxaan rabaa inaan gudagalo xafladda ujeedadeeda muhiimka ahayd maamulka gobolkaani taariikhda aada maqlaydeen ayuu howlgalay wuxuu ka howlgalay xamar laga bilaabo afgooye markii laga bilaabo ilaa iyo meesha la yidhahdo jilib ayuu isbaarooyinka ka qaaday kadibna wuxuu soo dhigay magaalmadaha gobolka Shabeellaha Hoose marka wuxuu qabtay wax badan oo ay ka mid yihiin wixii hortiina laga xaadirinayay oo ah maamul qaran taasoo cid ka kaalisan aanay jirin xag maskaxeed xag maal iyo xag muruq midna oo maamulku asagu intaas u saaray oo dhammaystiray اسمها معمول عروض بدن أورتينا لا حاضرين تعبك يبسين وكانوا قبل كقبتين نبت جليل قبل كان أيو أنت إلهي وفتشي بقول كيرا بقول لما تيكرو لكن بقول كيرا يشن
وصوي انتوا قاعدتوا هاي وأكلوا معهم قبل كقبتين وهو قاعد كجيستين وصوت جليين اسمها دقنوين كقبل هل كان حاضرين أيين وأكلوا معهم قاعد كجيستين وصوت جليين وضد كنال ولا أفرطة كنال كوبات لوات سبعات يا عفرات دقمة كرتواري ماشي أصلا مركي معهم كتيرين dadku ay ka qaxeen booskeeduna uusan joogin 5,000 ama ando 100,000 lacag maantana uu maraayo lacag ku dhow 100 milyan lacag ku dhow uu maraayo booskeedu si maalintii aan tagay degmada waxaan waaye meel uu ka taagan yahay lun haba yaraatee maantana waa degmo wax soo saarka badan gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu maamulku suurto geliyay inuu qado kanaalka ugu weyn Soomaaliya ee Birima Secondaria oo ay ku cabaan dadka gobolka Shabeellaha Hoose iyo dunyaduba iyo duurjoogtuba boqolkiiba content ugu yaraan wuxuu kaloo gobolka suurto geliyay وهو قبلكو بدقين دينة إسلامك وهو ماشي وسوى جيد جيران بدك علماء مركي الوجبه حمر وديارته انت سود دقان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وانت ديارته سود دقان بدك الوجه هذه جري وهو قبلكو كم بدها أما عام أهين بدك الجورين اسكت ضيا قفك الجورين oo islaama oo laga qafaara xamar inay badbaadiyaan waliba si xoog ku badbaadiyaan Allahu akbar waa gobolku midka kaliya ee soo saaray dadka Ilaahay ku guuleeyay diinta islaamka ee ciidanka ee dhamaantood lagu tababaray ama aktarkooda inta badan gobolka Shabeellaha Hoose meesha kaliya ee ay ku barteen hubka ku dabrideen waa gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu kaloo gobolku ahaa dadkii ugu horreeyay ee galay jihaadkii looga soo horjeeday nimankii diinta ka baxay waxaa uga shahiida gobolka Shabeellaha Hoose 15 shahiid oo ka tirsaneed ciidanka gobolka Shabeellaha Hoose Allahu akbar Allahu akbar waxaa gobolku ilaa hadda uu taagan yahay difaaca diinta islaamka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka intaas gobolku ayuu maanta oo halkan aan joogno waxaa Soomaaliya ku amaada war xumo weyn waxay noogu amaal gudeen dadka diiwaanayaasha inay noo dhex galaan walaalaheena muslimiinta ah oo ay dhahaan war isbaarooyinkan maxaa loo dhaafaya isbaaro may ahayn lacagtii laga qaaday waa midda diinta lagu difaacay waa midda lagu xoreeyo wadanka waa midda Ilaahay lagu gaarsiiyay halkan meel ma aanan dhigan guriga kama dhisan ganacsi looguma jirto Ilaahay baa iga sheegay waa Soomaaliya kun shilinoteeda ka badan oo Soomaaliya $1 oo Shabeellaha Hoose ah wax ka badan inaysan ganacsina ugu jirin meelna yool Ilaahay baa marqaati ka sheegay Ilaahay ma amal marin uga rabaa Allahu akbar waxaa adeegsaday dadkii aan gobolka kula dirirnay oo tuugada ah oo afar qolo ayaa way adeegsadeen saxaafadda iyo dadkii walaalaha shaydaanku dadka dhigooda ku jira afarta qolo waxay yihiin dadkii aan kula dirirnay gobolka oo isbaarooyinka aan ka herinay oo qabiilka aan ka dhashay u badan qolo waa qoladaas qolada labaad waxay yihiin qoladii aan xamar kula dirirnay oo argixisada ahayd qolada saddexaad waxay yihiin cilmaaniyiin jaga ka doona gobolka qolada afaraad waxay yihiin seehbal loo xukumi karaa horta waa afarta qolo waxna dhaxayo afartiinu haddaad jaga ka helaysaan maanta ku soo dhowaada islaamkii baan ku wareejinay waxaad sheegaysaa ninka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd intaas waxaan rabaa inaan halka uga baxo maxaakiimta waxaa laga rabaa
معلمين يدك توار كيسان ما هو كان دسنين هو إنه دسنين وهذه الشيء من عطسين تاس وعن هالكاسنا كوجابيو وعن كفتن كاس وعن رواينا شيء ومدة الصومالية وعن كعطسنا إن إلهي كبغان qofku waxa uu geystana inay sheegaan oo dhib ah waxa uu geysto wanaagana ugu amal gudaan sida haddaanay yeelin amal gudkoodu wuxuu noqonayaa dhibaato waxay la soo kulmeen sagaal sano oo musuqmaasuqa 20 sano cadaalad darraa oo cadaalad darraa oo rag iyo dumarkii la simay oo diintii Ilaahay la fasakhay oo ahayd shuuciyadii iyo 12 sano oo ahayd aan ku cuno aan ku dilo aan ku kufsado 12 sano mid oo saas wada ay saas dhaxlaysa saas cadaaladu waxay tahay kitaabka Ilaahay qaata taageera diinta Ilaahay taageera Ilaahay ka baqa meesha waxaan u jeedaa dad badan oo aan talayaala oo beeraleeya oo nooc walba aan diinta Ilaahay ku shirin gashay وردينت إلهي وحقشنا وراغنا وحدر سنة ما ديننا محاكيمت وبغيل بغيل الله هذيك بغيل الله محاكيمت حول ما إستان وحول ما إيمان دولة ما تاجرته حولي النوع سيدك النسا نبت قليل وحكا غبطة إذا ما مشاركة وسيلة ديبة سكدة ديبة صدقات بعية إلهي كبغى بغيل ما يسكت عفادي هذيك بغير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعوايق وقعن وعيسى وأوجد معك أنتم معكم بغيران معك أنتم معكم بغيران معيان حب أواد ديالمين إلهي قوشان وكيري مركي لديالمين انتي نبغوا الله يبين لما قلوا عمر كدري ليس لما قلوا عمر كدري ليس حبتها أنك تشوجين بالله هذا ما أنا ودري سوا بغيلين ما يكفي غلطة ما غلطه إلهي كبغى وهذا يريدين حوالها دينا إلهي ذكوها الجوية صدقاء النسية كذا مركز بالحلال وعن مساكين دوكر قاري وينه وودوين كدسي وينه وعقبه وينه مركزان بغيلين هاي حقوق الإسلام كذا إلهي نقول آيات جدا وشابكين كجرتا وإن حق لك يا غالب بنان معنا يرتين سنة لك افتوي إذن هذوكو ذنبي ليالا هذا ثم أتسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن أقول يجي وحاول الله حسن ضد مدن إلا حسن ولي ودن الله حسن هذا قواسي وعيهين أنا قد أفقوا أنها وحاني رهنا من دافسن هداد أركتت من أدوغا وجرة فرحدا ما أنت ماشا إنو كجوغنو دادوك وستي نوغو جرة والشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله تاسين العصوص النو برشوين كعالم كوردن دبكي وحوق لي ويحصوصتان أنا ماشا فضيا وشوغا وعن كفا إذا سنة يا مناصرك اللهم تقبل لنا شهادتهم في سبيلك وأسكنهم فصيح جناتك إنك أنت الولي العظيم يا رب العالمين انت نوجد به ninka maanta ugu sareeya dadka meeshan bimacna martida ku soo dhaweynaysa waa walaalkeen hadda ka tagay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ahna madaxa amniga midowganta oo ay taariikhdu tahay 30 bishii 9aad 2006 saacaduna tahay 6 saac iyo rubi anigu tays intaas sheegay waxaan ku wareejiyay maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose maxaakiimta islaamiga Soomaaliyeed wixii dhib oo ka dhaxana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mas'uuliyadeedana ayaga Ilaahay weydiinaya wixii dhib ay ku geystaan ayaga la weydiina wixii wanaag ay geystaan ayaga la weydiina والسلام عليكم ورحمة dadkan aan iscafino Soomaaliyeed oo aan maamulka iskula jirnay amaan madaxda u ahaa anigu dhamaantood waan cafiyay ayaguna cafiyeen iyo mas'uuliyiinta gobolka oo dhan wixii ay ii dirsadaan maxaakiimtu waxaan hayo iyo waxaan ahaynba
inaanu qabtaan diyaar u ahay wasagaa guud ahaan wasalaammiyaha guddiga fulinta maxaakiimta soomaaliyeed sheekh shariif abakuna darbiyada waxaa loo gelisaan maxay ahaato minooyin waxaad la socotiin dalkan sida uu ahay iyo dhibaatada jirta ugu yaraan ma waxaad nooqiri laabihim wixii jiray inaan wax ka fududayno waxay ila tahay soomaali meelay joogtaba inay maanta ku qanacsan tahay waxaa ka socda magaalada muqdisho iyo dhammaan gobollada maxaakiimtu ay gaareen interview waxaan ogaa shacabka soomaaliya inta ugu badan inay barnaamijkan taageereen weli ay taageersan yihiin sidaas darteed aana danka gelaynin dadka qaylinaya waxaana isku sabarsiina oo rabaa inaan ku sabarsiiyo dadka hawshaan ku jira nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo khayru khalqillaahi ah ha ka badbaadi waayo bani aadamka marka annagoo masaakiin oo waqtigaan joogna inaan ka badbaadna arrin suurtagala ma ah marka waa inaan dul qaadano laakiin aan dul qaadana ma aha wax walba aan ku sabarno annaga laftigeenna sabarkeenna adduunyau leeyahay bani aadamaan nahay idan la mid aan nahay adoo shaqaynaa nin maalin walba dacaal kula daba taagan waxaan u malaynaa inaad marka dambe soo jeesanaysa marka soo jeesadeenna waa dhan taana ahna la dhaafaan leena intaas markii aan ka gudbo maxkamadaha islaamiga sida laydin sheegay gobolkii aan ugu wareejiyey waa aqbalna jazaahum allahu khayran allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxay sameeyaan feershadeenada hoose laba tarxiyo tarxiyadii koowaad gumadkii koowaad ay sameeyeen markii labaadna gobolkii inay ku wareejiyaan maxaakiimta ay dhahaan dadkaa wala midna arrintaasna inaan ku ammaanay ku fiicanta base inaan ku dacaydayno aan cadaalad falno soo cadaalad ma raadinayno bal aan cadaalad falno nimankaasu dacay managaas daayilaan جزاكم الله خيرا waxay la taaniga dadkaas inaan fadligaas u ogaano inay muhiim tahay camalkaana u fiican sababka ah wax u daahayeen waxay ahayd kow gobolka inay nabad ka jirto hawlaha yaalana ay tiro badan yihiin wax dadejiyaan aysan jirin meel walbo la tagaan khaladna ku jira loona baahaya si tartiib ah loo waxyaabaha kale ka sii muhiimsan waxaa ka mid ah ciidamada maxaakiimta waxaa la rabaa in la mideeyo waxaan u maleynayaa usbuuca dirisiin soo banaanka fadhiyaan usbuuca la mideeyo gobolkuna waa la wareegna maxaa ciidanka bedel la haddaadan haynin ee mas-uuliyaddu ugu wareejiyay bal intay laegtaa fiiriya mas-uuliyaddu soo in la guto marabta waxa lagu gudahayo waa ciidankii waa garsoorkii waa maamulkii falilaahi alxamdu waxaa u diyaarsan ciidan soomaaliya oo dhan isugu jira diintiisa iyo dadnimadiisa lagu kalsoon yahay oo cid walba ay ka mid taha loo diyaariyey gobolka oo maanta la dhaqaaqaaya oo la wareegaya meelaha ugu muhiimsan allahu akbar ciidamada shabeellada hoose waxay ka mid yihiin ciidamada maxaakiimta allahu akbar saraakiisha iyo madaxda gobolka shabeellada hoose waxay ka mid yihiin maxaakiimta islaamiga allahu akbar walilahi alxamd meel alla meesha loo diray inay diyaar u yihiin waxaan u malaynaa walaalkii cirfaa idiin sheegay inay diyaar u yihiin inay dhufays ka galaan etoobiyaanka hortooda allahu akbar waxay ila tahay marka dadku inay maseeraan inay fiicanta dadku inay waxay ila tahay marka dadku inay maseeraan inay fiicanta khayrka in loo tartamaa alla jiriyey subxaanahu wa tacaala wasaaricuu ilaa maqfiratin min rabbikum وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين تاسع لتبعين عضقتنا حن يدان يدان عضقتنا من غير مرة ما كيسا ننكي قيرو يدبنيمو يسومارينيمو يإسلاميمو كجرتو جيتك وناكسن وأوجه داي مر ننكي عمري كرنا ومداس أفرتك السماء ويفرك أهدنا عدالة مهن sideetan iyo labadii dagaalkii soo bilowday ilaa 16 sano ugu dambeysana burbur iyo dhibaato ku jirta waxa hadda dadkaan isu taageen isugu yimaadeen ummadda dhibaatada in laga bixiyo ama laga fududeeyo inta la kari karo isku dayna ka qayb qaadato hadda ka qayb qaadato karina ka gaabso hadhibin intaas kadib
gobolka arrimihiisa waxaan rabnaa inaan u xallina sida soo socoto maamul in lagu bedelo arrinta dudnaa waxaan hormarinaynaa arrimaha ciidamada iyo nabadgelyada waxaan ku ajinaynaa garsoorka waxaan ugu dabamarinaynaa arrimaha maamulka dhammaan dadkii ka shaqayn jiray gobolka mas-uuliyaddii shala saareed waa saaranta ninka aan la soo bedelin oo xilka aan laga tirin mas-uuliyadda isaga haya laakiin ninka xilka laga tiriyo wuxuu aadaa oo ka shaqaynaa meeshii loogu talagalay oo la geeyey sidaas darteeda aan mas-uuliyaddii wada qaadaynaa dhammaanteed waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الله أكبر الله أكبر شيخ عمر إيمان حفظه الله فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بدك مسؤولين دمانتود iyo dadka shacbiga oo farxadda weynka badan ka soo qayb galay dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullah salaan kadib waxaan idin sheegayaa salaan kadib waxaan idin leeyahay anigoo ku hadlaya golaha shuurada magaceeda waxaan jeclahay dadweynaha inaan u sheego mas-uuliyadda ay leedahay shuurada waxa weeyaan camalkan islaami masiiradiisa in la ilaaliyo taas waxay keenaysaa tillaab aan wakhtigeeda la gaarin inaan la qaadin haddii ay dhacdana kufid badan inay imaanayso mid aan wakhtigeeda la gaarayna inaan laga gaabinin haddii kale eedayn badan baa imaanayso sidaas daraaddeed annaga muhim oo nooma aha dadka dicaayada maxaakimta ka faafinayo ee dhahaya maxaakimtan waxay gaareen meel fulaan meeshaasna way ka leexdeen waxaanu leenahay wax kasta wakhtigeedu bay leeyihiin lagamana hormarinayo in sha allahu tacaala lagamana dibmarinayo midda kale waxaan dadku u sheegayaa cadliga waxaa ka mid dadan sineen inaan la sinin waxa weeyaan maamulka shabeellaha hooso dadka mas-uuliyiinta ka ah iyo dadkii kaloo aan la dagaalanay oo qabqablayaasha ay dad siman maaha dad muslimiin ah oo islaamka difaacayo iyo dad islaamka ka soo horjeeda bay kala ahaayeen ilaahayna wuxuu leeyahay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun nin xun iyo nin wanaagsan ma sinaan karaan midda kale maanta waxa meesha yimid waxa weeyaan ma aha in shabeellaha hoose keligeed xilliga la wareegaya ma aha laakiin waxay jirto waxa weeyaan wax soo socday maxaakimta demji lagu bilaabay ood ogeydeen xamar markii aan ogeynin cid kasta ama qabiil kasta maxkamad gooni ay u lahayd in la isku soo daray ciidan islaami la aasaasay taas marka waxay keentay dadkii guruubyaasha ahaa ee gaaladii iyo dadkii xumay la dagaalamay in ayagana qaybtaas demjiga wax looga soo daro sidaas baa keentay in shabeellaha hoose gobolkiisa xilka lagala wareego maxaakimtii siyaasadoodana la hoos keeno ayagoo mas-uuliintii waaweynaa ka mida sidii haddaba ladiin tilmaamay oo ugu horeeya ninka guddoomiyaha yuusuf maxamed siyaadeen dhacade midda kale waxaanu sheegaynaa markaan aan leenahay gobolka shabeellaha hoose maxaakimtii xilka lagu wareejiyey macnaheedii waxaan doonaynaa sidii xamar baan horumarin aan ugu wadno oo aan doonayna wixii islaamka ilaahay uu raalli ka hay la gaarsiiyo yaa shabeellaha hoosena bani aadam waa wixii ka dhinay in lagu saxo maxaakimta nidaamkeeda iyo lawaa'ixdeeda in lagu saxo ee wanaag in la dhammaystira ayaa la doonayaa marka waxaan leenahay nin kastow masiiradan islaamiga oo socoto haddaadan wax ku darsanaynin dhibkaada kala har war diyaar ma u tihiin inaad naftiinna iyo maalkiinna iyo karaankiinna inaad maxaakimta ku biirisaan ood ilaahay dartiis ula shaqaysaan diyaar ma u tihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar ninka ragga ah waxa weeyaan waxaa lagu yaqaanaa ma yidhaahdo aniga wixii hore haddaan ka qayb gelin meelan kala qabsado male waa iska fadhinaa ma yidhaahdo laakiin wuxuu yidhahda camalkaada ku soo saarayo haddaad ilaahay dartiis maxaakimta iyo nidaamka jira aad ula shaqaysid
ilaahay baa ku soo saaray adduunyadana waxaad noqonaysaa nin hormuuda aakhiradana waad ku guulaysanaysaa ilaahay wuxuu leeyahy waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmu'minuun taas baa noo asaasa camalka islaamiga oo la doonaya in la hergeliyo howlo badan uu baahan yahay awoodeennana waa ka badan yahay waxaa la rabaa nin kastaba asoo ilaahay dartiis ula jeedo fikrada uu haayo iyo caqligiisa iyo karaankiisa inuu ku biiriyo ousan sugin intii la yidhaha kaa nala shaqay ousan sugin intii lacag looga qoro camalkan waxa weeyaan waa camal ilaahay lagu raalli garaynayo maaha camal magac iyo sumcad iyo loolada leeyahay maaha ummadaana la doonayaa in nafteenna iyo maalkeenna iyo dhiiggeenna aan ku xorayno aan soomaaliya isku keenno islaamkana uu ka taliyo sidaan adduunyadana aciza aan u noqonno aakhiradana ilaahay uu noo gargaaro ilaahayna wuxuu noo ballan qaaday walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun dadka mu'miniinta cizadooda waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa inay u gargaaraan hadday helaan maraykanna wax ka qaadin maayo etoobiya injiray ana waxba ka qaadin mayso waxaan ilaahay idinkiisa aan ka baryaynaa in dadka muslimiinta aan sabab u noqono kuwii xoreeyana noqono insha allahu tacaala marka nafteenna yaa nagala qaalib noqonin ilaahay hadduu na ogaada inaan gargaarkiisa aan istaahilno ilaahay waana siina in tansuru llaha yansurkum haddii aan ka gaabinane dad naga fiican buu ilaahay nagu bedelayaa wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum marka annaga aan is ilaalinno raallinimada ilaahay aan raadinno fulaan wuxuu yidhi iyo saanay ahayd maxaakimtu kuma shaqayso waxay ku shaqaysaa wixii danta guud iyo islaamka maslaxadiisa ay ku jirta ay ku shaqaynaysaa hawshii maanta la qaban karo waa la qabanayaa tii kalena beri baa loo dibdhigayaa ninkii ilaahay dartiisa ku shaqeeyna islaamkaa soo saarayo marka waxaan leenahay inta meeshaan isugu timida inta ay soo yimideen ajri xasanada allah ka siiyo waxaa inoo ballanay islaamkii inaan u noqono askar saas ma tahay allahu akbar allahu akbar waxaan idin rajaynaa guul iyo barwaaqo iyo maxaan ku idhaahdaa islaamkii oo kor noqday walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin allahu akbar wasalaamu calaykum waraxmat ullah waayahay haddaba barnaamijka iyo kuwa lamida inta aanu ku kulmi doono waxaan idin leenahay anigoo Saciid Nabadoon ah iyo bahda diirad.com oo idiin soo tawin doontaa barnaamijyo kala gedisan sidaas iyo nabadgelyo